Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal 24. odayaal ka soo jeeda gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka dalbaday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya inuu ka qayb geliyo wasiirada loo sameeyay dhawaan maamulkaasi. warkaas waxay noo hayaa wariye Liibaan Cabdi Cadow oo halkaasi nooga soo diray. kulan ballaaran oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho odayaal waxgarad iyo nabadoonno ka soo jeeda beesha duubana degil ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyin ay sheegeen ciidamada dawladda Soomaaliya inay ugu geysteen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose dhalinyaro ka soo jeeda beesha duubana degil waxay ugu baaqeen saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose inay ka fiirsadaan dhalinyaro loo soo xirxiray inay ka tirsan yihiin kooxo burcada oo ku sugan deegaano ka mid ah gobolkaas ayagoo ugu baaqay madaxda dawladda inay kala ogaadaan dadka dambiyada lagu sheegayo iyo dadka degan deegaanadooda ee laga soo wadayo waxaan odayaasha dhammaan ay sheegeen dawladda inay ka filayaan in dhalinyaradaasi la sii daayo isla markaana aysan ahayn wax dambile waxa ay tilmaameen shaqaaqa ka dhacday gobolka Shabeellada Hoose in lagu dilay 2 ruux dad kalena dhaawacyo ay ka soo gaartay arrintaasina ay tahay mid aan loo dulqaadan karin dhanka kale 24 wasiir oo magacaabay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa ay ku sheegeen inay ka waayeen saamiga ay ku lahaayeen beesha duubana digil waxaana ay tilmaameen inay ka codsanayaan madaxweynaha in saamigooda la siiyo isla markaana ay ka mid yihiin dadka deegaanadaas. Professor Ali Maco Dalha ayaa ka mid ahaa aqoon-yahanada shiray waxaana uu cabiray fikirka ku aadan wasiirada la magacaabay. waxaana aniga naftigay ka mid ahaa gudoomiye guddiga waxaan ka ahaa maxaa dastuurka ayaan ahaa marka ninka dastuurkii ugu horeeyay ee maamul goboleedka 3 gobol soo dhisay ayaan ka mid ahaa uu soo dhawr adeegay meeshaasna uu soo joogay ilaa muddo sanad ah hoosaasi say u hirgasho waxaana ahayn haddaan nahay beesha darbana ugu digin beesha ugu horeysay ee taageertay maamul goboleedkaasi kuna qabatay hotelkaani hotel Gaawo in uu ay soo dhaweeyeen balse meeshaan ka fileynay in aanu lana awaal mariyo meeshii aan ka sugeynay in wasiirada ugu horeysay lagu daro hase yeeshee wasiiradii horena waa ka waynay tanna waan waynay taasna in dadka deegaan meesha aan ku lahayn in 4 wasiir la siiyo annagii deegaanka annagu haddaan nahay darbana ugu digil waxaan degnaa 4 degmo ayaan ka degnaa waxaan degnaa markaan degnaa degmada marka waxaan degnaa qoryoole ayaan degnaa waxaan degnaa kurtuwaar ayaan degnaa sablaal ayaan degnaa weliba maxaa leedahay baraawan deegaankaasi qaybaan ku leenahay oo dadkiina qaar ay degan yihiin nabadoonnada shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa nabadoon Saciid Arbow waxaana uu ka hadlayaa dhibaatada ka dhacday gobolka Shabeellada Hoose ee soo gaartay dhalinyaro ka soo jeeda beesha duubana degil waxa ka hadaloo hayne ilmo oo aniga noo qaladeen oo deegaan ayaan oo laga tilmaamay burcad inaan ahayn burcad ilmo muwaadin ayaan deegaanka ayaan iyo tilmaamo way marka lagumaad ilmowii lama laga dili shalay gurina la gubi oo gardari bareer warka may ka jiray yani nin walba gobol jee asiga xur aya hadda saasas goboleysigaas socday goboleysigaas dartiis oo ilmowii yani oo dhaqaaqaas iyo dhaqaaqa dartiis diidaa iyo shalay ungumaad lama la dili gurina la gubi hadda iyada beledka baa dhahrooge dadka Yunusum soo dhigi yani burcad waay beledkaas soo dhigi hadda beledka dhajira marka ma tilmaamaane in ilmahaas burcad ahayne deegaan ayaa muwaadin ayaan iyo sheegan laakiin ma la diidi jara dhaqaaqa deegaan joy kana dhaqaaqa kaliya la diidi ma ogda in nin walba baa deegaan jee horqay si kastaba hadalkan ka soo baxay odayaashan iyo nabadoonnada maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu u badnaa dhibaato loo geystay dhalinyaro ku nool gobolka Shabeellada Hoose oo ay ugu baaqayaan saraakiisha dawladda in dhalinyaradaasi aysan ahayn dambiilayaal. Liibaan Cabdi Cadow, Royal TV, Muqdisho.